warka xabad joojinta ay ku sheegay waa wax kama jiraan waxay naf bideen aan magaalada dubin guryahay dubiyeen waxaan u maleeyaa kullu ilaa 300 400 oo guri kaba yaala guriga kaan anigu deganaa aniga hadda kaan deganaa qayb dhan bay goorsatay cadaawad fog oo gobadnimo ahayn oo sida dilaadan wax dambe isugu iman dooni ama waxba ka dhaxayn dooni bay u macaamileen malafida say u garaacayaan magaalada markaasi maanta waxay ku urureen wax alla wixii naga soo horbaxay aan magaalada ku rid aan guryaha dubin dukaamada dubin aan shirkadaha gubin aan masaajidada gubin aan ceelasha iyo aan biyaha gooyn intaasi maanta arintooda ku soo ururtay raxiim salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo jooga golihii dhaqanka beelahan SSC waxaan rabaa inaan yar iftiimiyo dhibaatooyinka ka jira magaalada Laascaanood ama gobolka Sool waxay ku dhawaaqeen qolada Somaliland xabad joojin maanta xabad joojin ku dhawaaqay 3 casho ka dambeysay 3 casho xabadu waa socotay waagu markuu bariyo salaad intaan laga bixin xabada ay soo bilaabaan gobolka u dhacay ama waxay gaadhisay ilaa 6 bar magaalada dhanka bari hal guriga oo taagan lagu ogaa guriga kaan anigu deganaa aniga hadda kaan deganaa qayb dhan bay goorsatay kuwii xaqiiqi xigay waa gubtay iskastoo bilow aadan way ma kartaa way arki karaan warka xabad joojinta ay ku sheegay waa wax kama jiraan waxay calaamadsadeen salaada subax marka la galo intaan laga bixin inay soo bilaabaan madaafiicdu maalinta ilaahay soo wado 5 qof 6 qof 7 qof maatooyina caruur islaamo dad masaakiin ilaa kuwa waalan oo guri ku xidhan mid waalan oo keligii guri ku xidhan oo nin ku ilaaliyo ninka biyo u soo doonay hoobiya ku dhiftan halkiiba ku dhintay waa wiil reer xuduraho ilmanaaliga Axmed Wareed Jibriil waan rabnaa kasta aanu cadayno xabad joojinta ay sheegeen inay ahayd wax kama jiraan in magaaladii dhanka bari baabi'iyeen in dhinaca koonfurta darafkaas yana shalay 3 4 guri ku dhimatay si ka baxsan bini'aadanimada iyo anshax markay iska caabiyeen ciidamadu waxaad ku argoosataa guryaha inaad dumisaan iyo maatooyinka cid kastoo bini'aadan arada ku dhaweeyay ma kartaa waana tuseenaa been anoo ku sheekayn mayno warkaas waa halkaa xabad joojinta ay sheegeen waa wax kama jiraan waxaa la yimid dadku waa istabrigto aad ku khiyaamayse ciidamadu way iska caabiyeen talaabo waa soo qaadi waayeen markas iyaga dib loo riixayay baashi halka markay mareysay waxay naf bideen aan magaalada dubin guryahay dubiyeen waxaan u maleeyaa kullu ilaa 300 400 oo guri kaba yaala waa wixii dhinaca bari ku yaalay waxay gubeen maharadihii waxay gooyeen biyihii waxay goysteen dhibaataan in caadi ah dadkii baa ka qaxay magaalada dadku aad ugu badnayn hadii dadku sideedii yahay madaafiic ay leeyahay maanta ku qof waa dil ama 60 qof intaas waa arrin cad oo cid kasta oo timaada iyo cid kasta oo marag noqonaysa inta baan tusayno gurigan deganaa baa kamid ah xaaladda salkaas iyo taala waa wax kama jiraan xabad baan joojin iyo xabad joojin baan ku dhawaaqnay wax alla wax ka jiraan ma jiraan 3 maalmood xabadii ma ay kala joojin fatari ahaan markii ay jabeen waxay sameeyeen waxay ku argoosanayeen magaalada dubin cadaawad fog oo gobadnimo ahayn oo sida dilaadan wax dambe isugu iman dooni ama waxba ka dhaxayn dooni bay u macaamileen malafida say u garaacayaan magaalada warkaasina waa warka noocaasa ma aha barabugaan ma aha beentan ay shubayaan ma aha si iyagu u hadlaan waa wax cad oo aanu mid walba meel ku teerin doono waxaan maqlayaa qolyo shirkadaha ay yiri dadka barakacay baan wuxuu deeqaynaa kulli shirkadaha dahabshir iyo Telesom iyo qolyaha la sheegaya wixii dadka aad u deeqaysaan waxa jirta gudi 330 iyaga dadka meel kasta ay joogaan quudiya shirkadahaas oo waxa aad bixinaysaan 330 ku soo hagaajiya araduna halkaas yaalin cid kastoo bilow aadana iyo cid kastoo arrinta danaynaysan hawsha hoosta u eegto dhibta halkaas ay taala waxay duqeynayaan magaaladii waa dumiyeen maatooyinka ilaa dadku waa laabay laayeen si fiican u dagaalamay aad iyo aad bay mahadsan yihiin waa maalintii 8aad
way dhaaftay wiigii maalintii sideed weeye hadda xilligan aan idinla hadlayaa way socotaa xabad sideedaa maalmood in badan marka maqrib laga joogo maalmaha qaar waxayba gaadhay markii cishaha la aadimayey intaa xabaddu saas ugu socotay xaaladdaas halkaasay taallaa markaasi maanta waxay ku urureen wax alla wixii naga soo horbaxa aan magaalada ku rid aan guryaha dubin aan dukaamada dubin aan shirkadaha gubni aan masaajidada gubni aan ceelasha iyo aan biyaha goyni intaasi maanta arrintooda ku soo ururtay cid kastaba bilow aadana oo ima kartana waan tusaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu